horaa looga heshiiyey Somaliland marka maxay ka tanaasuleysaa anigu garan maayo wax gaar ah marka la galo wada hadalka aynu miiska qeexino wali korxaad weeyaan waxaan laakiin hadayna marka kuwa la galo Somaliland aynu eegno maxay ka tanaasuli kartaa qadiyadaha taagan waxa taagan kaas مثلا waxay tiri waxay oran markay tiraahdo anagu goon istaag baan doonaynaa waxaan la soo noqon xubnadeedii markay tiraahdo waxa halka ka bilaabmaysa oo halka qolada sunnada waa muqaddas marka tanaasulku wuxuu imanayaa markaynu waxa inta xalilo gudaha galno watay wax u dhaxeeya ma jiri karaan labada muqaddas oo midnimadii iyo goon istaagii oo ay isla afgaran karaan gudido waxyaabaha dadka marka dhibaato dhacdo dal jiray markuu burburo ama jabada ka dhex samaysmaan ama siyaasad la isku qabto waxa la eegaa sida dhaqankeenu yahay maxaa lagu oran jiray maxaa soo jiri jiray moodalaa jira badan adduunka kuwa ugu wareegsan Eritrea waa moodal Sudan dalkeedu dawlad isku qabsado waa moodal haddii bid maayo qaar kamida qaar lagu dagaalamay baa jira dunida kale waxa jira East Timor baa jirta iyo Indonesia waxa jira intaas oo dalood ay dhibaato ka dhex dhacday marka haddii bid maayo marka la wada hadlo hayo way jiri karaano adiga oo aan midalba hadan ku qaado arintan Somaliland waxay doonaysaa madaxbanaani bay doonaysaa hadan ba iyada aan ku qaato waa go'niin baa la yiraahdaa badana dalal calan leh oo مثلا مثلا marka tiraado dalba go'ay waxa muhiim ah go'niinku muxuu macna leeyahay wax weeyaan waynu kala tagno waligan isku soo noqon weynaa is arki meynaa wax bayna gama dhaxeeyaan mise wuxuu noqon karaa miftaax okay intaas doonaysa maxay naga dhaxayn karaa wixiiba inaad hadan idinka dhaxeeya iyo suuragal haddaad adigu haddaad meel aynu istaagno labadeenu Somaliland aniga wax ila tahay haddaan badee u guda galo waxaan waxa keenay marka 60kii eegto inagoo wanaag wadanaynu isku daadano israacnay Soomaa marka ma aha wax ay la soo baxday oo cusub aan lagu aqoon waxa weeyaan duruuftii ina soo martay dagaaladii iyo dhibaatadii baa keentay Soomaa labadeena dhinac waxa ka arkaa qolana go'niin bay u aragtaa waxay u aragtaa laakiin badana inaynu aynu aragno marxalad la marayo marxaladana مثلا إريتريا يسوع كلا قوين إثيوبيا إثيوبيا مانتا مركي حليلان وحيابها إريتريا إسكرميت بينه ولا بدل بربورة بينه شوف هذانا كتشري إريتريا سجاشن كي بيشي تشون أي قيبته قبضت السنة من قيبته راح قبضتي مي إثيوبيا وحلش way ugu ogolaatay way ogolaatay kumay deeyin taasi mar kale istileen boqol kun oo qof baa kaga dhintay shalay waa kii abiy xalila hadana faraaq qaaday inaga isaga inoo garnaqaya waxaas waa maxay maanta waxa laga yaabaa inay dal isku milma ay noqdaan isku dhawo aanay muhiim baahayn laakiin calankii iyo ciidankii iyo ciidii iyo xuduudkii kala leh waxay intaaba soo baaragtay anigu mesela Kanadaan joogi jiray Kanada iyo Mareykan ma kala garanaysa cid dalka joogtay iyo dalka leh laba calana waa kala leeyihiin xuduudna waa kala leeyihiin baasaboorka ma gudbaan kaadiyad baa lagu kala gudbaa waad ka shaqaysan kartaa waxa doonto samayn kartaa dadka ugu waaweyn ee Mareykan gudihiisa marka waxaan uga jeedaa waryeynaan meel inaga xidhmin ma aha zero sum maaha waxa laga yaabaa haddaad carqalad dhaafto inaad markaa badii nimcaadi u tagto aad xalisho oo tiraado haday wax allaale wax doonaysa kala inaad isku darsan karaysaa dadka marka ay waxa soo kala soo maraan waa in lees fahmaa lees aaminaa la yiraahdaa war bal horta aynu halka ka furno haday taas u timaado way dhacaysaa dhinaca kale anigu waxaan qabaa Somaliland cadaawad badan oo imaka ay u hayso koonfur ma jirto ama ay u hayso
halkan ay degan yihiin waxay mustaqbalkooda bay ku leeyihiin dadkeenu xamar baa la degan yahay oo Soomaaliya ku tagaa marka taa aad leedahay wax u dhaxeeya ma jiraan wax u dhaxeeya wax iman karaan bilowgana waa iman karaan bilowga dabadiisana waa iman karaan haddii bilowga adkaado oo lagu heshiin waayo de bilowga dabadiisa albaabka furo bilowga dabadiisa ugu tagaysaa wax allaale wax doonayso marka Soomaaliya waxay taan wada hadal aanu heshiino oh yes haddii de laba mabda la kala tagin lama heshiinayo oo halkaana kama soo dhaqaaqayo ana halka kama soo dhaqaaqayo wixii dhexda lagu heshiin karo Dr. Fadal hadaynu istinaano bal si iftiimiya maxay noqon karaan baad isleedahay wax dhaxo oo muuqdo oo dadka ahl aqliga ah ee cilmiga ay fahmi karaan ma jiraan anigu arinta arin imika gudi loo saaro fara lagu hayo weeyaan oo markan de مثلا aanu ku qeexeen oo isaas ila tahay waxay ila tahay waxaan ka hor dhacayaa waqti aragtida dad ku hadlaysa adigu iyo aqoonta aragtida taan ku sheegay weeyaan hal dibco okay labada dhinac ha dibceen waayo مثل بان كسينيا مثلا هدان بحق سوماليلاند كسoo eego hadii ay مثلا Soomaaliya tiraahdo idin badayni goytaanki in chess laba chess aynu noqono bal aynu chessno laba chess baynu noqono is agyaala مثل badan baa duka jira imka European Union ka soo inakii reer Yurub mulahay maalintii dhaweyto annagu saasaanay waa runtiisa haddana Union bay soo European la balahay miyana calaamadoodii wax wada lahayn miyana courts wada lahayn miyana baarlamaan lahayn miyana dad xukumo lahayn miyana commissions wada lahayn miyana kuwii goonida u go'ay dusha ka xukumin waxa soo kala sameysma kara wax jira marka kulligeen waxaynu u baahanahay inaynu maskaxda furano tan hadii gudiyadooda iyo Somaliland haday waxoodu ay iyagu dib isugu noqon iyaga jirta laakiin yaan laga dhigin muqaddas inaan la samayn karin oo laba jees noqono laba jees iyadoo leeyahay ayaa wax walba la wada yeelan karaa markaad ku darto dhalashada loo qaaday wata Dr. Fadal waxa aad loo hadalhayaa oo dad badan oo de arintan ku foogin ay leeyihiin ereybay isticmaalayaan leeyahay confederation waxa uu leeyahay waa meesha dhexe ee la isugu iman karo confederationku waa nooc midnimo ah bal confederation hadaynu dadka waa erey afgariisiga aynu u sharaxno muxuu noqonayaa هذا أنا أقول فكريا نوعية بدانو consortial confederation federation أي نوعية بدانو أي دولة بدان يو لبد دولة بيسمو تجان أي مكمدي هاي وانا كالخفيف سيء unitary state يضوح والبيا وذا لوقع عنده كويسة أتبد ما يو وصي خفيفة وحوجيستا مركز confederation iyo consortium iyo aad gasho waxa xoogeysanaya gooni da oo dawladda dhaxad daciifaysa anigu afkaartu way ballaaran tahay ha ballaarnaatee Soomaaliya maanta waniga Ethiopia ka sheekeynaya Soomaali maanta haday isu timi buuqadani joognay adduunku wayna eegaya buuqadani joognayna waa buuqad aad u qiimo badan innagana danta inaga lumaysa way badan tahay hadii مثلا haduu yimaado مثلا iyada oo la isu tanaasulo sida la sheegayo مثلا hadii مثلا ba ay laba jees aynu noqono oo aynu yiraahdo sidaaba مثلا ay ku timaado still confederation ka aad sheegaysa waa waxa marka loo lagu dhaqmayo waxaynu wada yeelan karnaa wax walba quful baa inagu taaganay hadda quful ka furto dabeetana waxaad u gudbaysaa taa confederation kaas aad u gudbaysaa ad siyaasadda xataa wada wada yeelanaysaa laakiin maxaa kala leeyihiin sovereignty-giina caalan iyo kala leeyihiin iyo yahdii beed maayo waxa rabtaan inta rabtaad ka gaarsan inaad isku darsato Soomaaliina kala waaymayso inay sidaas samayso marka waxaynu u baahannahay inaynaan ku jahwareerinay marka hore innaga iyo dhaqankeena iyo danteena inaynu sidaynu isugu tanaasulo nidhaahno war inta badneed waan soo xidhnay midna aan waxaan ku leeyahay Somaliland faa'iido mayso Soomaaliya faa'iido mayso Boqortooyada faa'iido mayso Hargeysa faa'iido mayso
haddiiba maanta calankii iyo sovereignty-gii iyo wax lama haysato sooma haysato dowladda federaalkii ka maarmi mayso iyadoon uba iman oo juuq oo dhan Somaliland ka maarmi mayso